waxay ahaayeen dad bulsho ah oo hal abuur leh. marka xoolaha la maalo inta ay ka foofayaan maqasha iyo xaraha mareegaha lagu xiraa, awrka rariga ah iyo hayinka lagu guuraa, xoolaha lama soo faani sarmanka iyo hareeriga ku yaal sabada guriga bay dheemaalka iyo qadowga iyo heliga ka gurata. afarta gudbay balan mid kale soo gadaal celiyo sidii goray garaar sare u baxay garab kamaan taago وحر بود كايغا فوشان iyo garayaxmaan mooje awagaxsanaan jiray tan iyo gaban ahaantiyeen sida goodir dhaalay haatanaan gaaweleeyahaayeen xaajada nin guuraanahaye anu garaadheeye. qof kastoo guriga jooga waxa uu muuqda halka ay awrtu daaqayso. nirgaha kareebka ah ee aan weli socod baran iyo halaha dhalay ee ramaga ah waxaa markaa iyagana ka warhaya dumarka iyo caruuraha guriga jooga. geela ragga raaca, arigana dumarka raaca. marka rakala agaasimo xoolaha maysin kastaana uu foofo. duqeydii iyo waxgaradkii degmadu waxay isugu yimaadaan geedka. marka waayeelku kulmadoodu waxay ku bilaabataa kabtan ararasho iyo awaalo waran. way kala gar qaataan oo way isu garaabaan. inkastoo aan la duubayn oo kaamarado iyo fiidiyoyo aanay jirin, haddana waxaa geedka lagaga hadlo ayaa guryaha caawa lagaga sheekaysanaya oo dumarka iyo dhalinyaradu ay ku haasaawayaan. waxaa laga soo warinayaa nin walba wuxuu ku hadlay oo mararka qaar maahmaah noqda. dhalinyaraduna way tarmisaa oo halhays buu noqdaa. cid kastaa way tartantay oo way kala dheeraystay. laba kastaa way legdantay oo way kala adkaatay. nin kastaa kaalinta uu bulshada kaga jiro waa la yaqaan. waa dad han weyn oo aan jeclayn wax lagaga garhelayo inuu golaha keeno. nin kastaa hadalkiisu sumad gaara ayuu leeyahay. waa la yaqaan waxa ka suurooba, waxa uu oran karo iyo meesha uu tegi karo. meesha aan wanaag laga rabin waxaa loo diraa mid garta yucub u celiya oo isna beesha kaalin ku leh. had iyo goorna beeshu markay guddoonka saluugto ayay ismargaabshee wakiilata. beeshu mar walba waa garyigid, waxayna diyaar u tahay inay geedka iyo golaha raggu joogo timaado. laakiin afhayeenada beeshu waa kuwa ku tababartay waqtiga adag. ninba maalin baa lagu guuraa in hadal ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday. qofku wuxuu ku garami jiray mahmaahyaha si ay xerbeegtiga iyo guurtidu ay ugu garaabaan. suugaanta iyo cararashadu waxay keentaa qofku waxaanu xaq u lahayn in loo xukumo. wixii maalintaa la kala helo ayaa lagu gowracan yahay. qofna xaq uma leh inuu racfaan ka qaato maxkamad sare oo loo dacwoodaana ma jirto. dadkuna waxay ka warsugayaan dooda iyo sida ay u dhacayso iyo guddoonka xeerbeegtiga. mar haddii lagu dhawaaqo natiijada, qofna xaq uma leh inuu ka hor yimaado. sidaa darteed waxay baran jireen hadalka. ragiigu gadana miyaa hiro guuray goortii aan garwaaqsaday miyaan gocooshadii eeday ganinkaan xanuunsaday miyaan guru dallaalaadeeshee gelin kolkii aan fooraray miyaan giirka koor u qaaday guhaad iyo calool xumo miyaan gaydhtay oo diriiray hadba gees miyaan dayay intaan gowraxyaada boore gaashaanka iyo teerigiyo gabaas miyaan qaatay guntigaan mar horsaday miyaan labaada low geeyey maged baanu taagnahay intay gadho nolosheede
madhoodiba gaamuray oo garab ku weynaaday magaraamo midaan ku subay gamaashigii dayrta gorgoor kacay lamoodyow durduro ma igu goolaabe ninka suldaanka ahi male ku xigeen iyo golo wasiirtoona waxa uu leeyahay rag guurti ah oo uu la tashado laakiin go-aanka keligii baa leh cidina kama hor iman karto lagulamana xisaabtamo had iyo goor waa lagu ururaa hadalkiisana waa la maqlaa waxayna aaminsan yihiin ciddii ka hor timaadaa inay eedayso oo waxay arkaan inuu karaamo leeyahay haddii uu cadhoodo beesha oo dhan baa la cadhoonaysa haddii uu dagaal galana weydiin maayaan sababta dagaalka waxaad moodaa bulsho heegan ku jirta oo sugaysa suldaankoodu amarka uu bixiyo dunjigiin haddaan cali garaad duubcad wada saaray asaan dunyadii iyo xoolihii idinla daawaystay asaan dowlad kaa dhigay maxaa duula igu raacday waxay ahaayeen dad ilaahay yaqaan laakiin aadani aan waxba u ogeyn saancadka iyo faranjiguba wacay inkastoo aanay mudnayn dad ilaahay abuurtay in la caayo haddana waxaa muuqata inaanay weelasha gaalada waxba ku cuni jirin runtii waxay ahaayeen dad mudnaa inay ina dhalaan oo aan ku faano waxaan ka sheekaynaynaa waa waalidkeen iyo taariikhdii awoowayaashii كامل انتيان لبلا على النيس ويدا مرشد ربي ما هد نظريتي مركانني وميزايا مصيبار لما نادى مركيان ميسي بوزيني مدعوة يالي يوم مركي من الزرو دورتي مسعني وعنيدي يودركي ميلو ودا جيدي من بيم الملك وقوم الملك kurtida iyo samadoonadu inkastoo ay maalin walba ka shaqeeyaan danaha beesha haddana mushahar iyo kunatoona ma laha dadku way isu baadi celiyaan socotada iyo martida waa la sooraa qoyskii aan wax ku filan haysan waa loo xoolo gooyaa marka xoolaha la maalayo caanaha wixii la kulmay ee socota ah iyo ragga geelahaya isku sibay u dhammaan qofka safraya lama haybsado ilaa la sooro oo uu nasto marka uu subaxii reerka ka jarmaadayo ayaa dadka ninka ugu weyni bariido iyo ina ayaa tahay ayuu isu raashaa markiibana waa gartaa haddaanu qof carrada dool ku yimi ahayn awaala waran iyo waxaa jira kadib ayuu uga waramaa sida dhulka loo yaal daaqa iyo deegaanka iyo sida ay beeshu u taal roobabka iyo raxmadda alle sida ay tahay darsanka dhulka iyo xoolaha jooga sida ay yihiin nin kastaana waqti ku filan ayuu haystaa oo uu ku waramo ninka loo waramayaana wuu ka gurayaa si danayn iyo rabitaan leh marka ay kala warqaataan odaygii waayeelka ahaa ardaagii reerkiis ayuu soo aadaa dhirta iyo kaymaha uu dhex marayo ayuu sii sahansadaa wuxuu arkaa geed weyn oo mooye laga qorayo wuxuu arkaa heerooyin iyo dagsaaro wuxuu arkaa dhir fara badan oo manfac u lahaan lahayd gurigiisa inta ay dadka iyo xooluhu maqan yihiin waxa uu guriga yimaadaa isagoo oo wata qalabkii iyo agabkii wax lagu cuni lahaa gabdhuhu subaxii marka ay xoolaha la soofaan ee ay soo meyracayso iyadoo shanshada ku sidata hararkii ay samaynaysay geeday meydhax ka tiirto iyo dhuubay xiddo ka samayso waxay fiidkii timaadaa iyada oo qabadii tolaysa oo aqalkii wada mareegihii iyo xarkihii awrtana wada waxay ahaayeen dad bulsho ah oo cid walbaaba ay ku qaybsan tahay nolosha qayb ka mid ah wiilashu waxay ku tababaran jireen nolosha adag ee miyiga waxay baran jireen dagaalka waxay odhan jireen khayr wax kuma yeele sharu tooghay ninku qalabka dagaalka waa ku xaragooda oo waa qurux marna dadka iyo bahalku isaga raba waxay ahaan jireen niman feejigan
oo wax walba ka garaaba. Waxay ahaayeen dad xishooda, rag iyo dumarba, dumarkuba ha u badnaadeene. Marna dhuub la xideeyiyo, dhirtii la isku maraayiyo, mooyihii dheraraaye, badarka kuu dhambalaayiyo, wax dhanbaad ka heshaayo, dhirtu waa nolosheena. qalabka guriga iyo weelasha in laga ganacsado may badnayn, maxaa yeelay qoyska Soomaaliga ahi suuqa kuma xirnay. iyaga injineer ahaa guryahooda dhista, fiilahooda samaysta, xeeryahooda qorta, wax walba ay u baahan yihiin waxbay u lahaayeen. waxaa lagu tartami jiray xalkaala ah, martisoorka, deeqda iyo wax kasta oo wanaagsan. iyo rasaas giniinigteedee onkood gugugu clayniyo hilac galaalacdiisidee gufaac iyo gurguure footiyo garaab heeseedee gururu iyo maayay la isku daray garangalkoodidhee bado guuxay mawjaro gurxamay gacaamadii aydhee gal xareena dad soo gibraday galiyo duufaandhee hir la gooray waryeel gab yidhi garan gartiisidhee xariir lagu gimaamadayiyo gabaabadeedidhee gibi la isku mageeray iyo gola furaasheedhee gobol kalena waa aniga iyo gadiiska sheegayga galilyoonayay cadhoomiyay gubaatay laabtaydu gogoshii la ii dhigay miyaan gaydh la qaaba waaye. doorkii culimmadu markasta culimmadu waxay ku lahaayeen dadka dhexdiisa qadarin iyo xurmo aanay cid kale ku lahayn. beel kasta oo meel taal waxaa la socotay culimo diinta barta. culimmadu waxay baajin jireen colaado, waxay heshiis dhex dhigi jireen qabaa'ilka, waxayna ka shaqayn jireen caaqibada iyo danta guud. waxay samayn jireen dhowrto ay beelaha oo dhan ka wada qayb qaataan, ujeedadeeduna ahayd in ilaahay loo mahadnaqo, wanaagga la isfaro, xumaantana la iska reebo. meeshuu doonaha ka yimaado, ninka culimada ahi qolada uu la joogo ayuu ka mid ahaa. waxaa loo hayay xurmo iyo qadarin gaar ah. salaadiinta iyo guurtida beeshu waxay jeclaayeen fadhiyada culimada, waxayna arkayeen culimada la joogoodu inuu yahay nabadiina xid. culimaa diinka Soomaalidu waa kuwa kitaabka Alle xambaaray oo qaali iyo raqiisba u huray sidii ay inoo soo gaarsiin lahaayeen fariinta Rabbi. waxay nolosheenna u ahaayeen iftiin iyo nuur Ilaahay ina siiyey. culimadu waxay u socon jireen barashada cilmiga, wax kasta oo kusoo gaara Ilaahay dartii bay ugu samri jireen. dadkana waxay u ahaayeen naxariis habeen iyo maalinba. waxay lahaayeen akhlaaq la jeclaado oo mujtamaca ku yar. dhowrsooni, cafis iyo dulqaad ayaa ka mid ahay. si kastoo noloshoodu tahay, marna basaasi kama muuqato. dadkana waxaad ka arkaysaa kalsooni iyo haybad, iyagaa dadka ugu sharaf badan, cid walbana tusaale u yihiin. waxayna dadka baraan casharada, cilmiga iyo duruustu cidna shuruud laguma xidho. waxa ay qaybiyaan dhaxalka, waxa ay kitaabka Alle ku kala xukumaan magaha iyo qaamaha iyo wax kasta oo la kala tabanayo. waxa ay dadka u sheegaan inay magaca Alle wax ku gowracaan. sunnada nebiga iyo raalli ahaanshaha labada qof ayay wax ku meheriyaan. arrimaha bulshada iyo baahiyaha asaasiga ah ayay qaban jireen. magaciyo ammaantoona kuma ay rabin. waxa ay samaynayaan Ilaahay hortii way abaal aakhiro iyo mid adduunba ka sugayeen. waxay ahaayeen culimo waxtar leh oo raxmad leh oo kooda baahan iyo cid kasta oo bulshada ka mid ah ka warhaya. qaybtood waxay ahayd kuwa ka saahiday adduunka oo u go'ay Ilaahay diintiisa iyo inay bulshada u adeegaan. waxay soo guran jireen
hada iyo xaabo wixii ay ka helaana way sadaqayn jireen. waxay ahaayeen kuwo ku sifoobay xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallam kun fi dunya kaannaka qariib oo caabiru sabiil. waxay ahaayeen kuwo u hilooba ilaahay la kulankiisa. waa dadaanay adduunya u muuqan. waa culimadii soomaalida. waa awliyadii geeska afrika. waa kuwiina baray alif la kordhibay, alif loos ribay, alif la goday. waa culimadii aynu ka dhaxalay minhaajka, tafsiirka, axkaamta iyo qur-aanka kariimka. ilaahay ha ka abaalmariye. waa culimo mudnaa in lagu daro taariikhda iyo manhajka waxbarashada ee dadka Soomaaliyeed. niman geda yarayn baan ahayoo gaada way jirayeen. wa ii garaad li'ii dantay inaan ka gaftaayeen. gobol kalena waa ii mahay midaan gallimaysatee. Soomaalidii hore waxay ahaayeen dad qabatimay nolosha adag. waxaana macallin u ahaa waqtiga. dowlad kuma tiirsanayn, hay-adana kuma xirnayn. wax walba waxbay u lahaayeen. waxaa dhex mara way ka heshiin jireen. culimadu waxay ahayd hay-adda ugu sarreysa garsoorka. arrin kasta markay iba furaan ayay ansax noqon jirtay. heer beegtiga oo ah heer dejiyayaasha waxaa loola tegi jiray wixii la saari waayo. khasab may ahayn guurtida beeshu inay diinta taqaan, laakiin inay culimada ku xirnaadaan ayaa waajib ahayd. waxa ay yaqaaneen xilliga oo muhiim u ah dadka reer guuraaga ah. waxa ay barteen cilmiga juqraafiga iyo barashada dhulka. waxa ay lahaayeen aftahanimo luuqadda Soomaaliga ah. waxay wax ka yaqaaneen xidigaha oo ay siyaalo kala duwan uga faa'iideysan jireen. duqeydii dhammaatay torow dirirka yaa eegi. dabtuurkii hadduu dhaco ayaa dhuxulihii daadin. degmatuhu maguurtay ayaa sahanka loo dooran. digsaarka iyo hangoolkiiyo ayaa gudinu soo daabi. ayaa deerka laantii ku xidhi qurac intuu diiro. waxaan ka hadlaynaa Soomaalida maanta maaha. waa taariikh u baahan in museumka la dhigo. candhana waa xubin inay ahaato wax la xasuusto. waxa ay dadka ku qiimayn jireen sifaadka sida deeqsinimada iyo sinimada. waxaa kala saaraya waqtiga iyo nolosha adag ee miyiga. 20 jir walwaal jooga looma xilqarin. cidina cid ma eersato. daraawiishay gacaniba waxay geysatay leedahay. halyey kasta oo doonaya inuu ummadda hor yimaadaa waa inuu ogolaansho ka haystaa waqtiga. ninku waayaha aqoonsi ka helaa wuxuu ahaan jiray nin la maqlo. hala yeela yaxye in lagu ururo oo birimageyda ah oo dadka ka dhexeeya. waxa uu leeyahay guurti uu la tashado, laakiin go-aanka uu gaaro ayay beeshu ku gowracan tahay. hidiya dhaqan waa hangool, hub waa hoojiya halgaad. hididii waa halhays, hantina waa halyanerig. ragiigu gadana miyaa aakhiro guuray. goortii aan garwaaqsaday miyaan gocooshadii eeday. ganinkaan xanuunsaday miyaan guru dallaalaadeeshay. gelin kolkii aan fooraray miyaan giirka koor u qaaday. guhaad iyo calool xumo miyaan gaydhtay oo diriiray. hadba gees miyaan dayay intaan gowraxyaada boorey. gaashaanka iyo teerigiyo gabaas miyaan qaatay. guntigaan marhoorsaday miyaan labaada low geeyey. maged baanu taagnahay intay gadho nolosheede. harmadhoodiba gaamuray oo garab ku weynaaday. magaraamo midaan ku shubay gamaashigii dayrta. gorgoor kacay lamoodyow durduru ma igu goolaabe.